xukuumaddii lagu dhawaaqay labadii bishan waxaa ku jiray xubno ay si weyn isku diidan yihiin madaxda maamulada ay ka soo jeedaan. qaar waxa ay ku lug yeesheen dhacdooyin, qaarna dagaal warbaahineed ayaa dhex maray. haddii aan ku horrayno Galmudug, xubnaha wasiirada helay ee ka soo jeeda maamulka Galmudug intooda badan waa xubno uu xildhibaana u soo diiday hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qorqor. in xubnahaas wasiiro lagu taxay, dadka qaar ayaa u fasirtay in durba dagaal lagu cilaamiyo Qorqor, laakiin midda gaarka ah waa in Axmed Macalin Fiqi laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Fiqi oo wasiirka amniga u ahaan jiray nidaamka Axmed Qorqor ayaa markii uu xilka ka tegay wuxuu marar badan Qorqor ku qaaday dagaal warbaahineed oo aan lexleexad lahayn. wuxuu kaloo Muqdisho ka abaabulay kulamo ka dhanaa Qorqor. sidaan xogta ku hayno, labada nin weli aad ay u kala fog yihiin. Fiqi wuxuu dhowr jeer soo jeediyey siday muhiim u tahay in la bedelo nidaamka Axmed Qorqor ee ka jira Galmudug. hadda Axmed Macalin Fiqi waa wasiirka arrimaha gudaha, federaalka iyo dib u heshiisiinta, mana cadda inay si togan iskula jaanqaadi karaan isaga iyo maamul goboleedyada qaar, gaar ahaan Galmudug. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu doortay inuu u abaalgudo saaxiibkiis Axmed Macalin Fiqi oo ay isku xisbi yihiin, taasina eed ma lahan. laakiin xasan sheekh isaga ayay hortaalla ayaa la leeyahay inuu abuuro dariiq cusub oo ay isku aqbali karaan siyaasiyiintan isdiidan oo dagaalkoodana ay saxaafaddu xoogaalka u tahay. dhanka Koonfur Galbeed, Mukhtaar Roobow Cali Abuumansuur ayaa noqday wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Roobow waxaa loo soo xiray si uu Cabdicasiis Laftagareen u noqdo hogaamiyaha Koonfur Galbeed. Mukhtaar Roobow ayaa xirnaa tan iyo intii uu Laftagareen ka arriminaya Koonfur Galbeed. dhowr jeer oo la isku dayay in loo doodo xurnimo siinta Mukhtaar Roobow waxaa la xaqiijiyey inuu ka hor yimid Cabdicasiis Laftagareen. sidaan xogta ku hayno, labadaas nin weli isma ogola. dhacdada uu mid xukunka ku qaatay midna lagu xiray ayaa sababtay dhimashada 10 ruux. waqtigan Roobow waa wasiir federaal ah. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ololaha doorashada ku soo galay inuu rabo inuu muujiyo odaynimo siyaasadeed, dib u heshiisiin iyo inuu isku soo celiyo dadkay xaaladaha siyaasaddu iska hor keeneen. iyadoo la og yahay kaalintii uu madaxweyne xasan sheekh ku lahaa dhismaha xukuumadda cusub, ayaa dadka siyaasadda ka faallooda qaar waxay qabaan inuu madaxweynuhu si dadban dagaal siyaasadeed u iclaamiyey. balse waxaa dhanka kala taagan dad aaminsan inuu madaxweynuhu dhismaha xukuumadda kadib isku maslixi karo hoggaanka maamul goboleedyada iyo xubnaha xukuumadda ku biiray ee isdiidan. warar aan ka helnay madaxtooyada Koonfur Galbeed waxay sheegayaan in xasan sheekh uu Laftagareen ka codsaday inuu Muqdisho yimaado oo uu rabo inay wada hadlaan. lama hubo inuu madaxweynuhu durba bilaabay xalinta tabashooyinka siyaasadeed ee u dhexeeya xubnaha xukuumadda lagu daray iyo madaxda maamulada qaar. waxaase dad badani qabaan inay arrintani aad muhiim u tahay. haddii lagu guuldarraysto in arrimahan hoos loo xalliyo, waxay degdeg u saamayn kartaa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. maxay kula tahay?